maanta gurigiisa ayaa la weeraray ciidamo ayaa weeraray ciidamadaas Soomaali marka laga sheekeynaya idaacadahana waxa la leeyahay ciidamada Soomaaliyeed ayaa weeraray baan leeyahay laakiin ana idinka daba geenaya maanta xaqiiqda dhabta iyo waxa jira aadi dhageyst Cabdi Qaybdiid waa heavyweight hadduu dhinto maanta dhibaato badan baa dhacayso aadi dhageyst haddii maanta la dilo oo wax lagu sameeyo ama dib loo geysto waa oday Soomaaliyeed waxa weeyaan taageero badan iyo shacab badan iyo community badan oo taageersan buu leeyahay waa la kacayaa shacabku way kacayaan xasaasiyad ayay noqonaysaa aad iyo aad meelaan rabay roob igu daay baa la dhigi jiray moogta waxaa jiro imaaraadka inay qorsheeyaan wadamo badan oo caalamka ku yaala caalamul islaam aad dhageysta soo dhawaada sii sheer garay maasha Allah wadamo badan oo caalamul islaam oo dhaxdhaxaad ka noqday arrintii khilaafaadka qaliijka yaa laga argoosanaya in la isku diro la isku horkeeno isbaabiyaan ayaa la rabaa aad dhageysto Urdun Tunisia Soomaaliya saddexda wadan dorbiika saaran imaaraad intuu ciidan soo qaato ma soo weerari karo aad dhageysto imaaraad intuu ciidan soo qaato saddexda wadan si toos uma soo weerari karo laakiin ayagu isku diraya ayagu isku horkeeraya ayagu hubka isku dhiibaya ayagu qoryaha isku dhiibaya aad dhageysto Cabdi Qaybdiid ana taageersanaadi aad dhageysto siyaasadan hadda jirto waday Soomaaliyeed fiqi iyo mahasalaad iyo hawshoodan iyo magaraysaa in Cabdi Shakuur iyo ku jiro waday Soomaaliyeed dhan buu u taliyaa laakiin imaaraad go'aanka ka go'an wuxuu ahaa in Cabdi Qaybdiid sujuuda lagu dhufto la toogto community-giisana ay kacaan dagaal xun oo lagu baabaayna barta uu ka dhacay rabeen laakiin waa la fashilinayaa madaxweynaha annaga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed waxay go'aan ku gaareen in baashaasi transparency cad banaanka la soo dhigo imaaraadna ciidankiisa already faray la soo gashay in imaaraad talaabo sharci laga qaado aad dhageysto waynu fashilinayna isku day walba ummadda Soomaaliyeed rabeen la iska horkeeno waddanka Urdun waxaa dil ka badbaaday boqorka waddankaas aad dhageyst seemtin imaaraad uu rabay inuu dilo boqorkaasi seeflaboodiyaashi iyo kuwii xumaatada jeclaa iyo kuwii qabiilka jeclaa iyo kuwii dawladda Soomaaliya inay burburto rabeen already way la boodeen way la ordayaan laakiin dawladda Soomaaliya waxaa ka go'an muwaadin walba oo Soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo cizigiisa iyo title-ka uu leeyahay in la ilaaliyo ka go'an aad dhageysto imaaraad qorshaha uu rabay waxa weeyaan wax yar baa idinka daba geenaya boos igli bartaas ciidamo waxaa jira imaaraadku ay tababarayeen oo lacagtu siinayeen ay hubka siinayeen ciidamadii ayaga ahaa dood badan bay dhalisay aad bay Soomaali isula dhaxmartay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa u tagay ciidankii kala soo wareegay wuxuuna ku daray una hoosgayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad dhageysto waxay la hareen waxaana gaareen 200 oo wiil way ka yartahay waxaan u maleynayaa 100 iyo hodho weeyaan yay la hareen markaasi ku andacoodeen inay ilaalin doonaan safaaradahooda iyo dadka officialka ee imaaraadka ka jooga dalka Soomaaliya lacagtooda iyo hungurigooda iyo kafaalaqaadkoodana safaaradda iyo dawladda imaaraadka ayaa tiraanaga mas'uulka maanta nimanka soo weeraray guriga Cabdi Qaybdiid senatarka Soomaaliyeed waxa weeyaan waa ciidamo ka tirsanaa ciidamadii imaaraadku ay tababarayeen waliba kuwii ay la hareen ay yiraahdeen safaaradda nada iyo official dadka officialka annaga noo ayay tababarayaan aad dhageysto imaaraado fashil baa joogta nin walba ku shaqeynayna fashil buu joogaa dawladda Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay amreen nin walba amray ilaahu musafir noqdo ilaahu diblomaasi noqdo ilaahu wuxuu doono noqdo ninka maanta soo amray inay ciidamadaasi galaan guriga Cabdi Qaybdiid iyo ciidamadii galaba in cadaaladda la horkeeno shir badan baana fashilmi doontaadi dhageyst Tunisia iyo seemtin ba ka dhacay xaalad la midaba ka dhacday dhageyst
لكن إذا ما هنا دل صو هيتمان واحد لو يقانا هيتمان دور نينو أوفيشال دور نينو تونسي ودن كتونسي أوفيشال أو مقرر سياسيين أو أرنتن قليج كأت أقصر دولة التاجرة أيجنا ديل كبد بعد يادي دقيست هل نينو وادنت أرض بارا إذا عذاها دقيست waxay rabtay imaaraad baan tagayaan idin maqashiinayaan rabayna idin fasiraadii dhageyst waxay rabeen oo la damacsanaa ilaahay baa badbaadiyay ilaahay dilaa dhintay aadii dhageyst in waxay rabeen abdi qaybdiid maadaama heavy weight uu yahay waliba qolooyinkan mucaaradka ee qabiilka kicinayay uu war community-ga uu ka soo jeedo oo dawladana macnaha waxooga ku shidayaan in la khaarijiyo shacabku kacaan isqabsadaan qorya la qaata ereyadii laga dhawaajinayay ahaa 1991 baa lagu noqonayaa aadi dhageyst qabow waa jir maanta qabow waran baa jira that's why aan jaakada u xirtay mog imaaradow ka leexleexan meeno kaana baqi meena runtaana sheegaynaa xaqiiqdana sheegaynaa waana kor istaagayna dawladda Soomaaliya waana garab taaganaa aadi dhageyst Cabdi Qaybdiin waa adeerkayay anu walaalkayay أنا الصومالي إليه أنا حشمين أنا شرف سيي عزنا سيادي دقيس جيم كاغا إماراتو يكو شقيو وفشل مي عدالة دانا اللي كانت دونا عدو والبقو أمرتين هيدي دقيس ويقى صوص عدو مركو بارتان كان دمادو وحان سفارة لها كلا قادم دونا إنكستوين وناكسرين oo aan jeclaan lahaa imaaraad inuu ina xishmeeyo oo walaalanahay una respect gareeyo oo dawladdanada noo daayo waddankanagana faraha nooga qaado oo jeclaan lahaa oo Soomaalida ka ganacsatana iskaga noolaadaan si nabad ugu noolaadaan baan jeclaan lahaa laakiin mar haddii masaalixda ummadda Soomaaliyeed uu ka hor yimid aadi dhageyst mar hadduu masaalixda ummadda Soomaaliyeed ka hor yimid ka leexleexan meena dawladana ka leexleexan meesha sida xogta aan hadda ku hayo imaaraad waxaan noqon doonaa dawladda ugu horeysay intaan burburnay ee kala maqneen soo noqonnay dawladda ugu horeysay muddo 24 saacadood gudahooda uga bixi doonto dalka Soomaaliya sababtoo meesha inugu wado وماشي أن كسو قذبني توقي سنة الله صورنا في هذه الدقيقة أنا حقيقة ما قاعد كران I am America citizen أيها أنا بيوز قرينا أيها قراعة يا عربت يا كوا إمارات كل شيء كوا وشقي يا قراعة هذه الدقيقة مدحوينها الدلك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو وحو أمري إن سدق دق عدالة الله هركينا سدق دق أهنا لو بارو عدة عمرتي إلا قوسو خارجية دلك وكبت باذي عبد قيب دادي دقيس معارض كرا انتا سير ربين معارض كرا انتا سير ربان هذه دقيس دادي لا تنكنيني هذا كشريسو إمارات قرشينيا كاويا سيفيل وور إنو دب دالك ونغضو سيفيل وور إنو دب دالك ونغضو عبد قيب ديد إلا الدلو وإمارات ديشو oo Soomaali ciidankeeda u soo dirto oo ciidankii ayadu ay la hartay u soo dirto oo dilaan oo la yiraahdo dawladda Soomaaliya ayaa dishay qabiil baa loo dilay community-ga uu ka dhashayna ee kacaan oo qoryaha la qaato la isbaabi'iyay rabay Ilaahay baa inaga badbaadiyay Ilaahay baa inaga badbaadiyay fiiriye Ilaahay baa inaga badbaadiyay aad u fiiriye alxamdulillah Ilaahay wada mahad aadi dhageyst ماراد وين الله دقالنا مرك كوا أقلق حنو ولا الكاس سوماليات أو دشيد يوضن كاغو أو بربرشيد أو شيء وكو أذيك سدو فإذا كهلي ميست ويكو سامين دون تادي دقيست ويكو سامين دون تا حبررتا بي سامين دون تا أما ويل أدنشا بي سامين دون تا أما قبر أدنشا بي سامين دون تا أما أديك يكو سامين دون تا يادي دقيش ما أنت الرجال أمد الصوماليات داس كده يدي إناد باب بإشيت إناد إمارات كسوقاتي لعك كسوقات ودن كايو كوكو بربوري هذه دقيش ودن كاغا وكا بربوريو كيسانا او نسمو
qadaadiic yar oo ku siiyey faa'iido ku soo kordhin mayso way ka dhamaanaysaa lacagta aad ii dhageyso urdun bay ka dhacday arrintan oo kale way ka badbaadeen shacabkoodii baa gacanta isqabsaday wayna fahmeen cadowgoodaadii dhageyst annaguna inaan gacmaha intaan isqabsanno cadowganaga fahanno cadowganaga inaan intaan fahanno ogaanno yaa loo baahan yahay waa shirqool la rabay ummadda naara dawlad ma ummadda Soomaaliyeed in la iskaga hor keeno la rabay moogtaa هذه دقيقة شرقول ربي ومد الصوماليات إلا إسكاقهر كان أيوها إلا يرى هذا الدولة الصومالية أيادي شيء عبد قيب ديد كدب نقريها اللقاته الله يسكب بابا قلويك معارض كهاي كومنتيك كعنينا أيدها وكاسي وانا للاي وانا لدلي وانا لصوري الله يسباب بيه لكن وكور قارنا وكور قارنا هذه دقيقة صوماليا ويقولوا سرسا Soomaaliya way guulaysanaysaa shacabka Soomaaliyeedna wuu guulaysanayaa imaaraadna inaga rayni maayo aad dhageyst imaaraad inaga rayni maayo aad dhageyst wiilasha soo weeraray guriga Cabdi Qaybdiid waxay ahaayeen wiilashii farakutirska ahaa ee ciidamada imaaraadka lagala wareegay tababarayeen ee Soomaali isla dhaxmaraysa waa dhaxdaas aad dhageyst waxaana 200 ka yar bay la hareen oo dhaheen safaaradaha annaga ilaalinayaan annagaana protection kooda iyo dhaqaalahooda iyo gurigooda iyo kafaalaqaadkooda sumeeyeen wiilasha maanta soo weerar guriga Cabdi Qaybdiid safaaradda imaaraadka laga soo diray waa sida Urdun iyo Tunisia ka dhacdo kale taadi dhageyst in halyeyga Soomaaliyeed sujuuda laga toogto oo magaca community-ga ku dhaxlay halyeyga waa aadi dhageyst markuu dhinta shacabku kacaan imaaraadna ximaar uu nagu yeero arab wasakh baatiin af arabi ma qaano laakiin maanta hadaan af arabi garanayo waa idan cayn la waan idinku tufilaa aadi dhageyst this is my country this is my people Somalia ana iskale arab basal curaadi dhageysh shidaalkaada haysatid shidaal lamide ayaan haystaa waliba ka badan aadi dhageysh waxaad arabay imaaraadow adii cusuriyeeysid ee rabti wadankayga inuu baabo gabdhahaygana shaaqidooyin uga dhigatid aniguna ibahdishid soo tarxiishid shidaalkayga inaan la soo baxo waan ka aqli badanahay afrikaan ninka waa aqli badan baan ahay Soomaali hadaan ahay aadi dhageysh arab waa ka maskax badanahay European iyo Western baan la tartamay anigu waqtiga adduunyada ahayn adiguna baaba ahayd waa loo fasiraya moogtahay have to direct ina ula hadlay imaaraad iyo carabta ku fikiraysa Soomaali inay baabiisaadi dhageyst 1960 1970 dhulkayga laami buu lahaa adiguna saxaraad ku nooleed carabay aadi dhageysh this is my country Somalia is Somalia still dhiigii iyo maskaxdii iyo aqligii wali wuu inagu jira waana iska ka dhicinayna aadi dhageysh carabay go'aanka iyo missionka aad soo abaabushay ee siyaasadda arrimaha dibadda ee ku aadan Soomaaliya rugcadayaal duqbilow oo kale dawladooda iyo shacabkooda Soomaaliyeed taageersan ayaa jira oo fashilaya mar walba ku dhawaaqay kaana codeerayaadi dhageysh mucaaradku waxay rabeen Cabdi Qaybdiid maadaama heavyweight uu yahay maadaama community uu magac ku dhaxleeyahay in la toogto la dilo mucaaradka iyo imaaraadna ay buunbuuniyaan ay dhahaan dawladda Soomaaliya waxay dishay oo toogatay halyeygu dhalay ee laandheeru dhalay ee Sacad Siciid baa la dilay kacay qoryaha qaata hubka qaata baaba illa iska dhigay rabeen ilaahay baa naga badbaadiyaadi dhageysh wallahi waa laandheer dhalay qaabkaas ay u dhigeen road map ka la rabay dawladda Soomaaliya lagu burburiyo inay isqabsato afarta koono illa isbaabiyo la dajwaayo wadanka Soomaaliyana ku noqdo sidoo ahaan jiray 1991 muqdishona qad cagaaran la kala dhiga howlo nooca shiro carabay
إمارات أو توك توك دريبات هاي أنا وكلا جوجو صومالي ودن كي سجل فهم ينا وحكستا كان هردع يا شيغنينا تانكي مستر بريسيدنت مدحوينها دلك الصومالي إنو نوح برتي هاي إنو ننا قول لي هاي وتقبله ويانا كوفيد وتادي دقيست نحوالا بجر تمانت هذه ودن كيقال ربين لبربوري ومكت هذه ديش مدحوينها دلك الصومالي إنو يهي ناقل بدن باني دي الشيغا دقيس دق سي امرجنسي وحكو امري ويري waxa soo socdana waan idin sheegay dhageyst si degdeg buu wuxuu amray in baaritaan lama waaqabo bay gaarigina shitooyeen waa minus هذه دقيست ودقبلو كبلو فرح ولا الكيس معو كيكا يا رب بشير بالله متاناين حسقور السعيب كيس قرشو درس كيس كنا لو رونا قرسيكو سهاجا بكجا لكتم مع الانشورية بناوين شنطة بغري حمر بما انت تحتاجنا هذه دقيست رود ماب كسيدن بوها عبد القيب ديد إن إذا ماذا إمارات كي لهرين السفارة النذي إلى علنا يعني دهين إني صوت درين ولا الدلو إلهي بكبت بادي إلهي الدلو انتهادي دقيست إن تعلقوا السيو دولة الصومالية عيدنا أي صوت درتبع الدلو اللي يرهدو كومينتي وكل شيء وهالية يقوا هاي إن النجم حتى هالية يقولوا هاي ومواطن الصوماليات إن كانوا معارض كي بودان حرد الدل بينه وحينا يدهان بالربيع هذه دقيست تقولون إنكم إمارات كصوت درسني حرست الدل بينه وحينا يدهان وهو بكل قاتل الله يصبر صدا والله يسباب بيه إمارات نو غسلوا رموكتها وكار قصدين ودو نجمار قيسان دون تيت صوماليا يس صوماليا عبد القيب دين هو الصومالي ويانا دي دقيست ثانك يو مستر بريسيدنت investigation كدق إعلام الشيء تانكي ضد بدن بيد الجنيسة واحد بدن ويسوكر جنيسة مع ساعدها ويقع يبشر صوص عتا إن شاء الله إمارات وح كل عدورة فيرية إمارات وح كل عدورة بالفيرية وجقبح عالم ككلا كل مدوران بالفيرية صومالينا هنا يدفع ذو ويان وأنا ودن كنا يكبحان سيدا قد نقصيها بدن لكن أنا وارنتاس كم دق معي صوبتوا شعب بدر الصوماليات بين نقدق الإمارات كي دبي ملاس لكن وحنقعد صلها ونجعلان لها ما تقف والبو مواطن الصوماليات وجعلان لها إني إمارات فرها إنك قادو إني أرميها قدها دلك إنك فرها كربحضو إني اسكدرك الصومالية إدري اسكدري سيني جوجسو ضد مسلم ويان مسلم بانو ناي تضبي اللباتان سنة يان دقال سكايا كسو جرني عرب انتين لعقتي كدركتين ربطان اسكو كان درتو لكن هذا كفر سويسو صومالي دلاي بانا هاي أفريكان نينكا واقلي بدن بانا هاي أفريكان نينكا وقاسي سم بانا هاي أفريكا وقميسو كجرتو ويلكا ديارات لها بانا هاي هذه دقيس أفريكا باباسن ويلكا عيدك وحوك بدن لي بانا هاي هذه دقيس إمارات كنفت ركيسة الدور كدقن وندبقيا ما أنت وكفاني أنا هيسنين أو قاجة نيكا ودري جري سكدا أنا هاي سكدا نيكا ودري جري بانا هذه دقيس نيكا سكدا ودري جري بانا هاي سكدا نيكا سكدا ودري جري بانا هاي وفقري أو قاجة هذه دقيس قوبي قن رفسان نقضي ما أنت بيننا ما قوبي يبديه جري موت هذه دقيست لكن إمارات رنتا وكف الشلمي شعب كو إسدجية ولا لا أن هاي دل كان أنك إسكاله إسدجية هذه دقيست
cabdiqaybdiid in la dilo oo imaaraad dilaan oo soomaali iska hor keenaan bay rabeen aad dhagaysto laakiin waynu fahanay waynu ka hortagaynaa waynu la dagaalameynaa imaaraad dhagax baan kaga saaraynaa waddankanaga aad dhagaysto dhagax baan kaga saaraynaa waddaniyiinta Soomaaliyeed ee Talyaani oo ka awood badan oo quwaddii Warsaw iyo NATO ku jiray yaan waddankanaga ka saarnay carab xuno basal cunaya basal oo fulay oo dabada iyo barida iyo dhabarka kaga dhacda xabada carab sujuuda xabad kagama dhacda carabta moogta xabadu sujuuda iyo inta kagama dhacda dhabarka iyo dabada kaga dhacda carabta xabada ma la socotaa dhabarka iyo dabada kaga dhacda soo ordayo carray dig ya dhac lagu siyaa moogta wiilasha Soomaaliyeedna halka sujuuda kaga dhacda xabada dhac soo jeedo indhihiisu shan yihiin yaa soo dulkiisii hooyadii difaacay ee barta kaga dhacda dhac. Then we defend our country. One defend garena waddankanaga waynu difaacina waddankanaga waanu difaacina sharaftanada mar dambana mar rabnaan dagaal sokeeyo ku noqonaadi dhageyst nin walbo niyadaada geli midaas imaaraad ciidankii u tababarayay ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ciidankii kala soo wareegay wax 200 ka yar adiga atiin boqolina ka yar yihiin baan u maleynaa ya ilaaha hareeno yiraahdeen anaga miishaarkooda bixineen waxayna rabeen assassination iyo isku dirka Soomaaliyeed inay isticmaalaan bay rabaan ala wiil $1,200 bay siiyaan aad dhageysto $1,200 oo salary bay siiyaan dawladana waxa weeyaan waa laga qariyaadi dhageysto laakiin ana I know it way ku soo dhacaan $1,200 يا ولاش الصوماليات سيان لك ولاش الصوماليات أو إمارات كو شقيرة يو هذه دقيست ودن كوا ودن كيني أبياشا ديل دونتان وأبياشين ويان هويوين كديل دونتان وهويوين كين ويان هذه دقيست كوني الله بقولوا $1 ودن كاغا اللي بربورين يتقادتي أو أساسينيشن يميشن اللي قدريو هيتمن لغاga dhigay waxa kaaga qiimo badan $100 adoo qaataadi dhigayso waan idin salaam ya meel ba joogtiin waa duqbilow kablo faarax walaalkiis macowkii ka yara sii gudbisiina shir garee wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh qabowga maanta aad buu daran yahay